kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kasta oo aad dunida aad ka joogtaan axad wanaagsan ku soo dhowaada wararka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda iyo waxyaabaha ka cusub ay maanta ay ka qoreen wargeysyada qaaradda Yurub. Kooxda Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay heshiis ay la gaartay heshiiska ay ugu kordhinayso ciyaaryahanka reer Portugal Bruno Fernandes kadib markii sida la sheegay maalmihii u dambeeyay uu socday wada hadal u dhaxeeya ciyaaryahanka iyo kooxda. heshiis cusub ayaa la filayaa inuu qalinka ugu duugo oo gaaraya ilaa 2027 waxaana sidoo kale uu haystaa hal sano oo kale oo dheeraad ah oo ku darsan karo haddii uu doono. ciyaaryahanka kooxda Bayer Leverkusen Jonathan Tah ayaa sheegay inuusan waxba ka bedelin qorshihiisa ahaa inuu ku biiro kooxda Bayern Munich xilli ay soo baxayaan warar sheegaya in kooxda Bayer Leverkusen ay doonayso inay xiddigan ay hayso. kooxda Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay wareegii ugu dambeeyay ee marayso oo ay ku heli lahayd saxiixa ciyaaryahanka Matt Delayed kadib markii ay ogolaatay inay miiska ay saarto lacag markaasi gaaraysa 45 milyan oo euro oo ay la socoto 4 milyan oo ku xiran qaab ciyaareedkiisa. Delayed ayaa la filayaa inuu heshiis 4 sano ah oo qalinka ugu duugo kooxda Manchester United waxaana iminka uu wada hadalka labada kooxood u dhaxeeya uu maraya wareegii ugu dambeeyay iyadoo la filayo 27 saac ee soo socota Delayed uu ku saxiixi doono kooxda Manchester United. kooxda Monaco ee dalka Faransiiska ayaa dhamaystirtay ciyaaryahanka la yiraahdo Christian Mueza kadib markii ay ka soo qaadatay kooxda Toulouse. xiddigan ayaa maanta qalinka ugu duubay heshiis 5 sano ah waxaana ku soo qaadatay lacag 16 milyan oo euro ah oo ay la socoto 4 milyan oo dheeraad ah oo ku xiran qaab ciyaareedka Mueza. kooxda Napoli ayaa lagu soo waramayaa inay rajo fiican ka qabto oo inay ku guuleysan karto ka hor intuusan soo xilmin ciyaaryahanka kooxda Benfica David Neres kaasoo la sheegay inay haatan ay kooxda Napoli ay ku dhowdahay inay la saxiixato. labada kooxood ee Benfica iyo Napoli ayaa wada hadalkoodii meel wanaagsan maraya waxaana la sheegayaa inay iskaga soo dhowaadeen in xiddigan ay soo qaadato kooxda Napoli iyadoo go'aan rasmi ah uu ka soo bixi doono 24 saac ay soo socota. kooxda Al Hilal ee dalka Sacuudi Carabiya ayaa ka dalbatay kooxda Brentford ee dalka Ingiriiska inay siiso go'aan kama dambaysa oo la xiriira inay hesho saxiixa ciyaaryahanka Ivan Toney oo si weyn looga xiiseynayo horyaalka dalka Sacuudiga. kooxda Al Hilal waxay sheegtay in xiddigan ay ku qaadan doonto lacag 60 milyan oo euro ah oo lagu burburin karo heshiiska oo kooxdani kula joogo. ciyaaryahanka Julian Aruja ee kooxda Barcelona ayaa ku biiray kooxda Paris ee dalka Ingiriiska kadib markii labada kooxood ay isdhaafsadeen dukumeentiyada labada dhinac waxaana la sheegay inuu haatan uu marayo wareegii ugu dambeeyay oo ku biiri lahaa kooxda Paris. kooxda Barcelona ayaa iyadoo la filayaa in lacag 10 milyan oo euro ah akoonkeeda loogu shubo si ay xiddigani ay soo wareejiyaan. Aruja ayaa u soo safri doona magaalada London si uu caafimaadka ugu maro kooxda Paris. haddii aan eegno dhinaca kalena ciyaaryahanka Bisaska ayaa maanta soo gaaray magaalada London si uu caafimaadka ugu maro kooxda West Ham kadib markii ay ku guuleysatay West Ham inay xiddigaasi saxiixiisa yeesho. Manchester United ayaa ogolaatay in ciyaaryahankan Bisaska ay iibiso waxaana ugu dambeyntii ay kooxda West Ham ku guuleysatay saxiixa Bisaska 5 sano oo heshiisa ay la gaartay iyadoo la filayo inuu markaasi saacadaha soo socda caafimaadka ugu mara magaalada London. kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ayaa labaduba waxay qiimeynayaan xaaladda ciyaaryahanka difaaca ee kooxda Liverpool ninka la yiraahdo Alexander Arnold waxaana la sheegay in xiddigani xaaladihiisa ay isha ay ku hayaan kooxaha dalka Isbaanishka. xiddigan ayaa heshiiska uu kula joogo kooxda Liverpool waxaa ka harsan hal sano oo kaliya waxayna Real iyo Barcelona ay doonayaan in ciyaaryahankan xaaladaasi uga faa'iideystaan. ma jiro wax hadal oo dhanka Liverpool ka soo baxay oo la xiriira xiddigan. Manchester United ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa in isha ay ku hayso ciyaaryahanka kooxda Brighton ninka la yiraahdo Ivan Ferguson waxaana la sheegay in kooxda Man United ay ku dalbatay lacag 50 milyan oo pound ah oo ay ku doonayso inay ku soo qaadato laakiin ma jiro wax hadal oo dhanka Brighton ka soo baxay oo la xiriira dalabka ka yimid kooxda Manchester United. Man United ayaa si weyn uga dhex muuqata suuqa kala iibsiga ciyaartooyda. kooxda Barcelona ayaa ku dalbatay inay heshiis amaah ku soo qaadato Joao Felix kooxda Atletico Madrid laakiin waxaa la sheegayaa weli inaysan ogolaanin inkastoo ay si weyn kooxda Benfica iyadana u xiiseynayso oo ay deen ahaan ku doonayso inay ku qaataan. Atletico Madrid ayaa la filayaa in go'aanka ma dambaysta ay ka gaarto si ay xiddigani ay u bixiso iyadoo ay u badan tahay in kooxda Barcelona ay doonayso in hal sano amaah ay ku siiso.
Manchester City ayaa lagu soo waramayaa in ciyaaryahanka Joao Cancelo ay ogolaatay inay mar kale amaah ugu laabto kooxda Barcelona kadib markii Barca ay ka dalbateen xiddigan hal sano amaah ah oo ay la socoto lacag 6 milyan oo euro ah ay ku qaadato. Laakiin Man City waxay sheegtay haddii ay doonayso in kooxdani iibsato ay lacag 17 milyan ay ku bixiso sidaasina ay ku qaadato